بسم الله الرحمن الرحيم مقع أمد الصوماليات محكمة قبل كبنادر قيبت عقابته ما أنت أي تاريخ تاي لحد بيش سيدات لبكون سقالي طبعا وحاي محكمة دوفر ديستي قال دعوذاتك لمبركيسو يهي لبب قلقة يسدح لبكون سقالي طبعا أو هذا سنة كي هي أندري كنا هذا سنة قضبة كلا سدح بقول لباتن يلح سدح بقول صدن يلبو حركة عقابته جمهورية ده iyo sodaya afar xeerka nabadgelyada guud hadaba maxkamaddu markii ay aragtay xaashida ee xafiiska xeelaliyaha guud ee qaranka ee ku taariikhaysan 23 bisha 7 2019 markii ay dhageysatay doodii xafiiska xeelaliyaha guud ee qaranka ee waafaqsan qodobka 114 ee xeerka habka ciqaabta jamhuuriyadda markii ay dhageysatay maragyada la hor keenay maxkamadda oo mid loo wareystay markii ay aragtay marag muujinta la hor keenay maxkamadda oo ka kooban 7 qasnadood iyo jaakad oo kuwa xabadaha celiya ah markii ay dhigaysatay dooda difaaca ee qareenada eedeysanaha oo waafaqsan qodobka 116 ee xeerka habka ciqaabta jamhuuriyadda markii ay aragtay cadeymaha ka koobnaa qoraalka iyo sawirada ee ay soo gudbiyeen qareenada eedeysanaha markii ay dhigaysatay dooda gabagabada xafiiska xeelaliyaha guud ee qaranka si waafaqsan qodobka 119 ee xeerka habka ciqaabta jamhuuriyadda markii ay dhigaysatay dooda gabagabada ee xafiiska qareenada si waafaqsan qodobka 119 ee xeerka jamhuuriyadda maxkamadda waxa uu cadaatay in walxaha ka kooban qasnadaha iyo jaakadaha ay abuuri karaan cabsi dadweyne eedeysanuhuna uu ku geliyey boorsada si ogaal ah 2 in ficilka dhacay aan loo cuskan karin xeerka ciqaabta guud ee jamhuuriyadda sidaas darteed maxkamaddu waxa ay ku weysay eedeysanaha qodobada kale ah 326 332 xeerka ciqaabta jamhuuriyadda iyadoo lagu helay qodobka 34 xeerka nabadgelyada guud waxayna ku xukuntay inta uu xirnay iyo ganaax $7,000 ah rafcaan ayaa ka furan maxkamaddu ay noo xiran tahay dacwadii maanta waa soo dhamaatay xafiiska xeelaliyaha guud ee qaranka waxa uu ku soo eedeeyay qodobo isugu jira xeerka guud ee ciqaabta Soomaaliyeed xeerka ciqaabta guud ee Soomaaliya Jamhuuriyadda Federaalka iyo xeerka nabadgelyada guud gudoomiyaha maxkamadda waxa uu ku dhawaaqay in lagu helay qodobka 34 xeerka nabadgelyada guud oo ka hadlaya ku xadgudubka hubka iyo waxyaalaha keeni kara khatar gelin ama cabsi gelin waxa cadaatay inay keeni karto arrintaasi cabsi gelin mar walbana waxa aanu ka duuleynaa oo ahmiyadda kuwaad noo ah ilaalinta karaamada haybadda iyo sharafta dadkeena iyo dalkeena Soomaaliyeed mar walbana waxaan ilaalinaynaa sumcadda ay raboorradeena xafiiska xeelaliyaha guud wuxuu ku dooday noqotana dood loo qaateena oo xukunka lagu saleeyay in arrintaas ay keeni karto cabsi gelin iyo sumcad dilid ay raboorradeena waxaan rajaynaynaa inay noqoto arrin lagu cibro qaato waxaan halkan maanta ku soo gabagabaynay dacwad loo haystay Andrew Brian Earlham oo dhalashiisu tahay Ingiriis ninkaas oo u shaqeeya shirkadda SKA ee ka howlgasha ama degan oo xafiis ku leh aeroboortka Muqdisho asagoo ka dhoofaya aeroboortka Muqdisho ayaa waxaa laga helay boorsadiisii cargo-ga ahayd qasnado faaruqa iyo 2 gaashaan xabadeed dabadeedna baaris la sameeyey iyo oo dhinacyo badan leh xeerlaalintu waxay ku soo eedeysay haysasho hub sharci darro ah qodobada 325 326 332 ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed iyo 34 xeerka nabadgelyada guud dood dheer iyo dacwad socotay muddo 2 maalmood ah
waxaa caddaatay difaacii iyo xeralintii markhaatiyaashii marag muujintii in qodobada lagu soo eedeeyey ninka eedeysanaha ah oo annagu aan muwakil u ahaa xafiiskan qareennada muqdisho law office lagu waayey qodobadii xeerka ciqaabta oo kale ahaa 325 326 332 laguna helay qodobka xeerka nabadgelyada guud ee 34 oo ah haysasho hub ama wax mataqaanaa qaybo ka mid a hubka oo sharci darro ah arrintaasoo keentay in mataqaanaa laga soo saaro xukun ah in lagu xukumay muddadii uu xirnaa oo 11 maalmood ah iyo 7,000 oo ganaaxa halkaa waxaa ka caddaatay markaan fiirino soo gudbintii sharciga ay soo gudbiyeen xeraalintu difaacii maxkamaddii guddoomiyaha maxkamadda in uu helay cadaalad sax ah oo wixii lagu haystay la caddeeyey in mataqaanaa waxna ay ku caddaadeen waxna lagu waayey halkaasoo iyadoo loo eegayo sharciyada internationalka ah ama dawliga ah waxyaabahan inaysan ahayn waxyaaba mamnuuc ah halkaas marka waxaa ka caddaatay in sharciga dalku uu shaqaynayo qofka ajnabiga ah iyo qofka soomaaliga ah oo sharciga hortaagan haddii la raaco waddo saxa loo raaco in laga gaari karo go'aan cadaalad ku salaysan aad baa u mahadsantihiin abukaati cabdirashiid maxamed aadan